adiga kulmiye nooa وعقالي يدوغا دوغا يدوغا كيما نبعد تالو أوسع ميكيا ورشدني كراميسا wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda beeraha Soomaaliland mudane Axmed Muumin Said oo ay ku wehelinayeen wasiirka caafimaadka Cumar Cabdilaahi iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal Cabdiqaadir Daahir Oojar iyo musharaxiinta isku sidkan ee golayaasha wakiilada iyo deegaanka iyadoo maanta ay ahayd maalintii labaad ee xisbiga kulmiye isku soo baxyada xafiisyada ay ku sameeyeen ayaa degmada Dilo wafdigani ay kaga qayb galeen taageerayaal ballaaran oo iyagu lulaya calankaas daanta waa xisbiga kulmiye iyagoo halkaas isku soo baxyadan ay taageerada ugu muujinayeen musharax Bashiir iyo waliba musharaxiinta kale ee ku sidkan ugu horeyntiina waxa halkaas ka hadlay musharaxa golaha wakiilada isagu hogaaminaya musharaxiintani ku sidkan waxana uu yiri waxa weeyaan dadweynaha reer Dilaad oo lagu yaqaan xamaasadda iyo soo dhaweynta qiimaha leh aad iyo aad baan marlaba idinka mahadnaqayaa dadka reer Dilaad waxaad nasiib u yeelateen inaad noqotaan albaabkii laga soo geliyay gobolka Awdal oo aad had iyo jeer ku muujisaan shucuurtiina iyo soo dhaweyn fiican aynu ku bartay taana nasiib aad u yeelateen degmada Dilo waxaan rajaynaynaa inay noqoto degmooyinka ugu horumarka weyn leh Soomaaliland insha Allah ilaahayna la qabto taasa ku dadaali doona geesta kale waxa halkaas ka hadlaya gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal Cabdiqaadir Daahir Oojar oo isagu bulshada uga mahad celiyay isku soo baxani ballaaran ee ay sameeyeen maalinta labaad ee xisbiga kulmiye uu lahaa ololaha sidoo kale gudoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Awdal ayaa dhaliilo u soo jeediyay xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxana uu yiri waxaad muujiseen Dili waxay tahay waxaad muujiseen awoodda ay Dila leedahay wuxuu muujiyay xildhibaan Bashiir iyo xildhibaan Maxamed iyo saddexda xildhibaan ee kale ee la socda ee degmada Baki Jaray Geelle iyo Farxaan oo ah runtii shan xildhibaan baa degmada Dila u sharaxan waxaad rajaynaynaa haddii Allah awoodda leedmo inaad sidaa maanta aad u soo baxdeen oo ah maanta maalintii ugu dambeysay inaad haddii Allah awoodda leedmo aad codkiinana siin doontaan 31 bisha haddii ilaahay waxaynu wada ogsoonahay waxa jira anshaxa doorashooyinka waxa ka xaaraana cayda waxa ka xaaraana isxagashada waxa ka xaaraana inay xisbiyadu ay isdhaleeceeyaan waxaynu shalay tooliye arkaynay in xisbiga wadani markii uu ku waday goobaha doorashada gaar ahaan degmada Boorame inuu la soo joogsaday ay aflagaado faan iyo been aan indhala oo aan loo abaday waxaad muujiseen inayna taasi waxba ka jirin waxaad muujin doontaan 31 bisha haddii Allah uu daliilmo inaad codkiina ku muujin doontaan inay codkiinu yahay xisbiga kulmiye waxaynu kaleeynu arkaynay in ay madaxweynaha hadda ay ka aflagaadeynayeen xarunta iyadoo ay mudanta madaxweynuhu waa father of the nation waa aabaha qaranka weey ma mudna inaynu aflagaadayno inagoo xisbiye qarana gabagabadiina waxa halkaas ka hadlay wasiirka wasaaradda horumarinta caafimaadka ee Soomaaliland Cumar Cabdilaahi iyo wasiirka wasaaradda horumarinta beeraha Soomaaliland Axmed Muumin Said iyagoo halkaas uga mahad celiyay taageerayaashani ballaaran ee u soo baxay xisbiga kulmiye iyo musharaxiinta isku sidkan iyagoona ugu baaqay inay cod ka siiyaan musharaxiintaasi iyagoo arintan iyo arrimo kale ka hadlaya ayaa waxay yiraahdeen maanta waxa marti looga yahay si golaha baarlamaanka aynu aqlabiyad ugu helno siyaasadaha iyo sharciyada iyo arrimaha dawladdu uga baahan tahay inay noogu meel maraan waxa maanta looga fadhiyay in xildhibaan Bashiir soo saaraan xildhibaanku wuxuu matalayaa degmada Dila wuxuu matalayaa gobolka Awdal wuxuu matalayaa muwaadin walba oo reer Soomaaliland marka codkiina ma ka seexanaa ma ku seexanaa saasi ballan ma tahay waxaad ogaataa doorashadu maanta tii hore mid ma aha waa la yaqaanaa goob kasta inta kaadhe taalla waa tiro
haada imkaad leedihiin waa inay iswaafaqaan maalinta codaynta waxaan iniga magannahay haddaan nahay golihii wasiirada ee xukuumadda hadda talada haysta ee hoggaanka u hayo madaxweyne muuse biixi cabdi inaad soo saartaan xildhibaanada xisbiga kulmiye oo uu Bashiir ugu horreeyo sidaa maanta aad iskugu soo baxdeen ee aad noo soo dhowayseen ee aad ilaa Goriyo Cawl ilaa halka dila aad waddada isku tunteen ayaanu u baahannahay inaad calaamadda kaaraha ee Bashiir iyo calaamadaha xildhibaanka kale la sharaxan ee golaha deegaanka ee degmada aad iyaduna saasoo kale aad ugu codaysaan maalinta 31 bisha haddii la yidhaahdo waxaad arkayseen shalay xisbiga waddani wuxuu khayryada ka lahaa oo aad maraka tihiin ood miidiya ka maqlayseen kulmiyaa la nacay miyay habboon tahay inaan nidhaahno waddani baa la nacay u cid baadna nacay inaan khayryad keenaya miyay habboon tahay xisbiga waddani iyo xisbiga ucid iyo xisbiga kulmiye waa saddex xisbi qaran oo asada oo Soomaaliland leedahay oo shacabka Soomaaliland u qaybsay inay kala taageeraan laakiin maxaa lagu kala badinayaa cod baa lagu kala badinayaa waxaad arkayseen oo dhaqan xumada waxyaabaha aadka uga xumaaday in media xalay ka arkay waxa ka mid ah gabdhihii sharafta iyo karaamada lahaa ee la ilaalinaya sharaftooda ee qiimaha badnaa ayay intay 15 hablood sii jeediyeen oo dhabarkooda sii jeediyeen ayay xagga dambe kaga qoreen Muuse ayaabay maxas madiinba madadnima sidaa ay hablaha u sii jeediyeen bay shacabka Soomaaliland waddani uga sii jeesteen ana ay liban qaadaya maxaa waxa soo keenay waxa weeye cadaalad darrada iyo qaabka xisbiga hoggaan la'aanta xisbiga saaxiibka Cabdiraxmaan waxaan leeyahay war xisbiga hoggaan loo sameeyo aad iska talasul waana lagu soo tijaabiyaan leeyahay وشكري عبد الله هريال TV بورما